ha rumaysan wax walba oo aad maqasho. Booliska ayaa xiray nin nadiifinaya gaarigiisa cusub. Sababta loo xiray ayaa ah inuu wiilkiisa garaacay kadib markii uu ogaaday in wiilkiisa oo 2 jir ah uu masaamiir ku xoqay muraayadaha iyo dhinacyada gaariga. Aabahan markii uu arkay sida loo galay gaarigiisa, inta uu xanaaqay ayuu bilaabay inuu wiilkiisa faraha ka garaaco, isaga oo aan dareensanayn inuu ku garaacayo dubbihii ama buriskii uu ku nadiifinayay gaariga. Aabahan markii dambe oo ay caradii ka degtay ayuu arkay sida ay wax u dhaceen. Kadib waxa uu geeyay isbitaalka. Dhakhtarkii ayaa baaritaano kadib u sheegay aabihii in faraha aysan rajo lahayn in la jaro mooyaane. Sidii ayaa wiilkii faraha looga jaray. Intii ay xaafadda u soo socdeen ayaa wiilkii weydiiyay aabihii, "Aabba, goorma ayay faraha dib iigu soo baxayaan?" Wuxuu u malaynayaa in faraha ay dib u soo bixi karaan sida cidiyaha oo kale. Su'aashii ayaa sidii onkod oo kale ugu kor dhacday aabihii. Wuu iska aamusay oo jawaab ma siinin wiilkiisa. Markii uu xaafadda dib ugu soo laabtay ayuu carad darteed gaarigii bud la dhacay ilaa uu ka daalay. Markii uu daalay kadib ayuu gaariga soo hor fadhiistay isaga oo oynaya oo quus taagan. Isaga oo murugo la ildaran ayay indhihiisa ku dhaceen muraayadii gaariga iyo sida uu wiilkiisa ugu xoqay musmaarka. Waa uu aamini waayay waxa ay indhihiisu qabteen. Mar labaad ayuu fiiriyay, mase waa qoraal uu qoray qof farbarad ah. Waxa uu isku dayay inuu aqriyo, mise waxaa ku qoran, "Waan ku jeclahay aabe." Aabihii wuu adkaysan waayay murugada. Maalintii dambe ayuu isdilay. Sheekadu halkaas ayay ku eg tahay, balse aan dib ugu noqono wax yar. Midda koowaad, ma jiraa qof gaarigiisa ku nadiifiya buris ama dubbe? Ma isweydiisay waxa meesha keenay buris ama dubbe? 2. Wiilku waa 2 sano jir sida sheekada ku xusan. Haddaba 2 sano jir ma qori karaa aabbo waan ku jeclahay? 3. 2 sano jir miyaa si hufan u hadli kara oo dhihi kara, "Aabbo, goormay farahayga dib iigu soo bixi doonaan?" 4. Sidee booliisku u xireen aabbaha sababtuu isdilay? Inta badan dhacdooyinka sidan oo kale ayaa loo tabiyaa, waxaana inta badan lagu lamaanaa xoogaa dareen murugo leh ama xamaasad leh. Murugta iyo caadifada ayaa ujeedka laga leeyahay waxa ay tahay in daawadayaasha ama aqristayaashu ay ku marin habaabaan fahamka saxda ah iyo caqliga saliimka ah ee qof kasta, waxaana saameyn kara xamaasadda, murugada iyo wax kasta oo caadifad ah. Dulucda sheekada ayaa ah ha rumaysan wax kasta oo lagu soo tabiyo.